السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوّا برنامج كان نوري سوّني ها برنامج كان نورك الصومالي كبريني دوّينها الصومالية وبهرني برتان أفكود هايو ما أنت نوحن دوننا إن برناه حبك الصحة يا لغة أفك الصومالية تطبعن أو الصومالية يا وحسابا نجا في الصومالي خلطن مركب وحن دوننا إن نسنه حبك خلطن أفك الصومالية اللغة يصير الله صح أفك الصومالية ده شو عن haddaba qorallada qaldan waxaan ku bilaabaynaa sidatan waxaan ku bilaabaynaa bini aadamku dhammaantiis kama sinna shido bini aadamku dhammaantiis kama sinna shido waana qoraal qaldan dhammaantiis waxaan meesha ku qornay qodobka kale oon soo qaadanayna waxaa weeye rabbi ka baq oo ilaali carabkaaga rabbi ka baq oo ilaali carabkaaga mid ka xiga oon soo qaadanayna waxaa weeye ummadda aabe waxaa u ah aadam ummadda aabe waxaa u ah aadam kulli waxaan qorayno dha kulli waa qaldan yihiin qodobka ku xiga waxaa weeye oona soo qaadanayno qoraal ku xiga oon soo qaadanayno waxaa weeye sanad walba beeraha waxaa loo sameeyaa caro gadin hakad qoraalka ku xiga oon soo qaadanayna waxaa weeye dhallaanka waxaa haya arad qoraalka qaldan oo ku xiga oon soo qaadanayna waxaa weeye guddoomiyaha guddiga hoggaanka hakad qoraalka xiga oo qaldan oon soo qaadanayna waxaa weeye xorriyaddii ka hor xariiqdii xuduudaha haddaba casharkan meesha ku qornay dhammaantiis waa qaldan yahay waxaan ugu talagalnay inaan idinku barno habka afka soomaaliga loo qoro iyo sida loo akriyo marka haddii afka soomaali qaldan aada qorto waxaa weeye dadka qofka akhrisanaya wuu ku wareerayaa marka qoraalkan hadda meesha ku qoran wuxuu ka qaldan yahay rabnaa inaan tusno waxaan ku bilownay bini aadamku dhammaantiis kama sinna shido qoraalka israacsan dhammaantii waa qaldan yahay kan ku xiga rabbi ka baq oo ilaali carabkaaga habka loo u qoran yahay qoraalkaasu aada buu u xun yahay waxba kama jiraan waa qoraal khaldan weeye ummadda aabe waxaa u ah aadam كل قرار كاس وقلدين رمانتس وقلدين قرار كاس دم وقلدين
sanad walba beeraha waxaa loo sameeyaa caragadin. dhammaan qoraalkaas waa qaldan yahay. dhallaanka waxaa haya arad, qoraalkaas waa qaldan yahay. guddoomiye guddiga hoggaanka, guddoomiyaha guddiga hoggaanka, kulli qoraalkaas waa qaldan yahay. xorriyaddii ka hor xariiqdii xuduudaha, kulli qoraalkaas waa qaldan yahay. marka waxaan rabnaa inaan meesha ka qaldaysno daawasho wanaagsan. halkan waxaanu ku calaamaynay meelaha uu khaladka uga jira inaan tusno. qoraalka u horeeyo bini aadamku wuxuu ka qaldan yahay, halkaa hakad baa ku jira. isma raacaan, iyo labaa isma raaci karaan afka soomaaliga. waa inaad udhexaysa hakad. bini aadamku halkaa baa ku jirta. dhammaantiis waa laba ma halkaan. bini aadamku dhammaantiis kama sinna, waa laba na. bini aadamku dhammaantiis kama sinna. shiddo waa labada halkaan. hadalka waa la adkeeya, carabka waa lagu adkeeyaa. rabbi waa laba ba. rabbi ka baq, carabka waa laba ra halkaan. rabbi ka baq, carabka ilaali. carabka haddaad tiraada waxay noqonaysaa hal ra markaad ka dhigto carab bay noqonaysaa. markaa laba ra ka dhigtana waxay noqonaysaa carab. rabbi ka baq, carabka ilaali. waxaa ku xiga ummadda. halkaan maxaa ka maqan? da baa ka maqan. ummadda aabe maaha, aabe waa inaad laba ba ka dhigtaa. waxaa u ahaa aadam, na baa halkaa ka dhigaysaa aadam. ummadda aabe waxa u ahaa aadam. sanad walba halkan waa laba na. sanad maaha, sanad walba waa inaad laba na ka dhigtaa. sanad walba beeraha caro waa laba ra halkaan. maaha sanad walba beeraha caro inaad tiraado xanaaq. caro markaad hal ra marka ka dhigto waxay noqonaysaa xanaaq. markaad laba ra ka dhigtana caro gadin. caro gadin waa labada halkaan. haddii halda aad ka dhigto waxay noqonaysaa caro gadin, wax la iibinaya noqonaysaa. marka caro gadin waa labada ayaa loo sameeyaa. qoraal ku xiga dhallaanka waa laba la halkaan. dhallaanka waxaa haya arad. hal ra markii laga dhigo maxay noqonaysaa arad. qof laqa waa haweenay noqonaysaa. laakiin dhallaanku waxaa haya arad, waa laba ra markii laga dhigo waxay noqonaysaa macnaha wax u dhan iyo waxay u baahan yihiin. guddoomiyaha waa labada halkaan. guddoomiyaha guddiga waa labada hal kaliya ma noqonayso. hoggaanka waa laba ga. xorriyaddii waa labada. xorriyaddii waa labada. ka hor xariiqdii waa laba ra. xuduudda waa labada. sida ayuu afka soomaaliga ku saxan yahay. marka waxaa laydinkaga baahanya afka soomaaliga inaad iska saxdaan. haddii afka soomaaliga uu qaldan yahay, qoraalkay fahamkuna waa qaldamayaa. marka waxaana muhiima afkiina hooyo inaad barataan. maanta casharka halkaa ayuu nooga ogyahay. waxaana idiin soo gudbin doonaa kuwo kaloo fara badan. dhammaan ummadda soomaaliya meel ba ay joogto waa salaameynaa. waxaana ku boorinay inay bartaan afkooda hooyo. dhammaan intana dhegeysanaysa inta nagu xiran waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. afka soomaaliga hala adkeeyo.